سؤاشي ugu dambeysay oo ah su'aasha 265 weydiyahan waxa uu leeyahay waa qof dumar ah sheekh waxay tiri aniga iyo ninkeyga gabar kale minkeed ilmo ma ku beeran karnaa hadii biyaha aan anagu leenahay gabar kale ninkeed waxa ka wadamana nin kale minkeed miya gabar kale minkeed jawaabtaas waxa weeyaan su'aasha jawaabteedu waa maya su'aasha jawaabteedu waa maya laana masalada asal ahaanteeda waxa loo yiraahdo at-talqiix ilmaha ma la beeri karaa oo dadka aan dhalaynin biyahooda ninka biyihiisa hooyada ukunteeda ma la isku beeri karaa si ay ilmo u helaan مسألة أصلها تاسوية التلقيح الصناعي بالله علماء قار قبوا يشيران إلى البنان تاعي لكن شروطه كحلان شروطه وحا كوكا لبدا نروح وين إسقبان وحرك صحة إسوهية والله بيه شرطك اللبات وين الطريقة دي توسك أهيد قلمضة أهيد أي كل لوايان شرطك الصدحات حرق قوذي وإنو ولي تشيره maxay ka wadaan nin dhintay oo biyihiisa laga reebay naagtiisii uu qabi jiray intuu san dhimanin markuu dhintay kadib ma lagu beeri karaa biyaha ya maya sababtu maxay tahay ninku marba hadduu dhinto xarigiisa ma goyn marba hadduu dhinto xaaskiisii ma aha saas daraadeed waa inuu xarigii wali baaqi yahay oo wali xarigoodi jiro shardiga saddexaadi waxa weeye minka wax lagu beerayo waa inuu yahay haweeneydaas minkeedii waa inuu yahay nin kale iska dhaaf haweeney uu qabee gabadhu su'aasheedu waxa weeye haweeney kale minkeed iska badaaya midda iyada lala qabo ee dangaladeeda ah minkeeda kuma beeran karto seeway nin baa laba dumar qaba mid baan minkeedu xamilaynin inuu ilmo qaado midna way baqaadaysaa way dhalaysaa waxa la sameeyaa marka isaga biyihiisii iyo iyada ukunteedii baa la isla falgelinaya marka isla falgalaan baa inta la soo qaado iyada minkeedii ma xamili karee tii la qabay ayaa minkeeda la gelinaya meeshaas ilmo uga dhalanayaan marka waa ilmo ayna iyadu foolanin oo iyadu aynan wallicin oo iyadu ayna ku rafaadin bilaash ay ku heshay markaas soconay marka oo soconay marka minka ilmaha la gelinayo waa inuu yahay haweeneydaas ilmaha dhalaysa minkeedu waa inuu yahay haweeney kale minkeed lama gelin karo sababtu maxay tahay ilmuhu minka uu ku korayo khasaa'is buu ka qaadanaya yani khasaa'ista aadamaha la socota jiinkiisa la socda minka waxbuu ka qaadan biyaha iyo ukuntana waxbuu ka qaadanaya sidaas daraadeed min kale ilmo lagu beeray ilmo kama dhigin karti shuruuda hadii la helo marka dadka madhalayska ah meelaha wax waa looga raadin karaa laakiin shuruuda iyo quyuuda culimadu dajiyeen in la xaqiijiyo way laba midba uu noqon karaayo waxa la yiraahdaa yani wax weeyaan waxa la yiraahdaa at-talqiix ad-daakhili iyo talqiix khaariji loo qaybiyo talqiixa khaarijiga waxa la yiraahdaa waa midkan yani tiflu anabib la yiraahdaayo biyihi iyo kuntii talsoo qaada banaanka lagu bacriminaya marka isla falgalaan kadib baa marka meel la gelinaya oo minka dib loogu xirinayo ka khaariji baa la yiraahdaa tiflu anabib loo yaqaan marna waa daakhiliyo gudaha la isku falgelinaya oo biyihii ninka mesela daciif xayawaankii minawiga baa gaari la ukuntii gaari la marka inta la soo qaado biyihiisa ayaa ukunta la gaarsiinaya saasay isku falgelayaan oo gudaha marka minka gudihiisa la isku falgelinaya kana daakhili baa leeyahay labadaba waa la sameeyaa shuruudaasana ka wada dhaxaysa hada billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam